السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح وناكسن dadkana dhageysanaya ku soo dhawaada warka subaxa idaacada Kismaayo codka Jubbaland qodobada warka subax kuwada ugu waaweyn oo halkan idinku soo gudbin doonana waxa kamid ah Puntland oo warka soo saartay xaaladda doorashada kuna hanjabtay inay go'ayso midowga Afrika oo maanta shirka yeelanaya xaaladda Soomaaliya. Maamulka degmada Warshiiq oo warka soo saaray dilkii xildhibaan Kamaal Shiiqay oo xalay markaa kooxo hubeysan ay ku dileen xaafadda Madiina ee magaalada Muqdisho howlgal laga sameeyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose oo ka curtay roobka guga. akhbaraadka dibadda kuwada ugu waaweyn waxa kamid ah khasaaro ka dhashay qarax ka dhacay dalka Pakistan iyo Hindiya oo baaraysa dad u dhintay oxygen ka fakaday bartii uu ku jiray. waa kuma warwageedii maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba radio Kismaayo ka dhageyso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan isku soo noqod wanaagsan dadkana dhageysanayo waa khamiis taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 22 abriil bisha afraad sanadka 2020 qodobadaasina waxay ahaayeen qodobadii warka subaxnimo ugu waaweynaa. haatanna waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo intaasi ka faahfaahsan subaxnimadana waxaa idin waramaya hadduu eebaha awoodda lahayd anigoo Cabdilmajiid Cabbaas aadan fantastic. haddii aan ku hormaro qodobka ugu horeeya ee warka subax, maamulka Puntland ayaa ka hadlay xaaladda khilaafka doorashada Soomaaliya ee xilligan iyo mowqifkooda ku aadan muddo kororsiga xildhibaanada golaha shacabka ee u sameeyeen hay-adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya uu ka mid yahay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa waxa lagu sheegay in kadib go'aankii golaha shacabka ay golayaasha Puntland wada tashi la yeesheen odayaasha dhaqanka, ururada bulshada rayidka, ururada siyaasadda iyo aqoon-yahanada, isla markaana ay soo saartay go'aano la xiriira dhinaca doorashada Soomaaliya. qoraal kooban oo markaa laba bogahay ayaa waxay Puntland ku sheegtay in Puntland ay tixgelinayso hay-adaha Puntland iyo qaybaha bulshada kana duulayso baahida loo qabo ilaalinta midnimada, xasiloonida iyo horumarka geedi u socodka dhisidda Soomaaliya ay qaadatay go'aanada soo socda. maamulka Puntland ee Soomaaliya ma aqoonsano tilaabada sharci darrada ahayd ee golaha shacabka ahi ee tobanaad muddaxileedkoodu dhammaaday ku meelmariyeen waxay ugu yeereen xeerka jihaynta doorashada iyo muddo kororsiga hay-adaha federaalka ee dastuuriga ahi ee dowladda Soomaaliya. Puntland waxay caddeynaysaa in heshiiskii 17 Sebtembar 2020 uu yahay hanaanka kaliya ee heshiiska lagu yahay si loo qabto doorasho federaalka iyadoo la xallinayo caqabadaha hortaagan fulinta heshiiskaasi si loo gaaro doorasho si nabad ah oo markaa wada ogal ku dhacda. Puntland waxay ugu baaqaysaa saxiixayaasha heshiiska 17 Sebtembar 2020 saamilayda siyaasadda iyo wakiilada beesha caalamka ee daneynaya horumarka siyaasadda Soomaaliya in miiska wada hadalka lagu soo noqdo sida ugu dhaqsiyaha badan si loo afjaro xaaladda hubanti la'aanta ahi ee dowladeed lagana hortago qalqal amni iyo waliba burbur dowladnimo. haddii ay dhici weydo in dib lagu soo laabto miiska wada hadalka Puntland iyada oo ka duulayso go'aanadii shirweynaha Puntland ee March 17 sanadkii hore, waxay ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka la wadaagi doontaa tilaabada ku habboon ee la qaadi karo si loo badbaadiyo masiirka dowladnimada dhiska ee Soomaaliya iyo danaha gaar ahaaneed ee dowladda iyo shacabka Puntland. Puntland waxa ay dadka Soomaaliyeed ugu yeeraysaa in la ilaaliyo midnimada wadajirka lana badbaadiyo mabaadi'da geedi u socodka dowladnimo dhiska Soomaaliya ee ku dhisan hanaanka federaalka iyo dimuqraadiyadda. maanta oo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay 22 bisha afraad waxaa lagu wadaa sanadkan aynu ku guda jirno 2020 in golaha amniga iyo nabadda midowga Afrika ay shir xasaasi ah ka yeeshaan arrimaha Soomaaliya maadaama weli doorashada Soomaaliya ay ka taagan tahay khilaaf xooggan. midowga Afrika ayaa waxa uu qaadan doonaa door hogaamineed oo ku saabsan xal u helidda xaaladda cakiran ee siyaasadeed, waxaana shirkan uu daba socdaa kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay dalbadeen in arrimaha Soomaaliya loo daayo midowga Afrika. xubnaha midowga Afrika ayaa waxaa la filayaa in shirkooda ay ku soo magacaabaan ergey cusub oo markaa dhexdhexaadiya saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya si xal looga gaaro khilaafka xooggan oo weli ka taagan doorashada Soomaaliya. madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalmo ka hor waxa uu booqasho ku tegay dalka Congo isaga oo madaxweynaha dalkaasi
sidoo kale guddoomiyaha midowga afrika ka dalbada inuu dhexdhexaadiyo hogaamiyaasha soomaalida beesha caalamka ayaa dadaal xoogan waxa ay markaa gelinaysaa in xal laga gaaro xaaladda cakiran ee hubanti la-aan ee Soomaaliya ka taagan taasi oo sii xoogaysatay kadib markii 12 bishan aynu ku guda jirno xildhibaanada golaha shacabka ay muddo kordhin u sameeyeen hay'adaha kala duwan ee dawladda Soomaaliya allaha u naxariistay waxaa xaafad ka tirsan degmada wadajir ee gobolka Banaadir lagu dilay xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana ka hadlay maamulka degmada Warshiiq gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Warshiiq Xasan Xaaji Maxamed Adarafey iyo ku-xigeenadiisa dhammaan xubnaha golaha deegaanka waxa ay tacsiid hiiraan leh u direen ehelka iyo qaraabada uu ka baxay marxuum xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulqaadir oo loo yaqaano Cabdi Kamaal Shiiqay oo markaa xalay maqribkii lagu dilay magaalada Muqdisho xilli uu markaa gaarigiisa uu galayay halkaasi aragii ka dambeeyay falkaasi ayaa goobta si degdeg ah ugu baxsaday waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan in lamaha amniga ee dawladda iyo ay baaritaano ka wadaan halka uu falka ka dhacay iyo sida ay ahayd xaaladda halkaasi ka jirta walow inta badan xilligan baaritaano ay ka socdaan goobta uu dilka ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa horey markaasi uga dhacay dilal loo geystay askar iyo mas'uuliyiin dad shacab ah waxaana inta badan falalka ka dhacay magaalada Muqdisho mas'uuliyadooda sheegta kooxda al-shabaab ciidamada ammaanka ee magaalada Marko ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sameeyeen deegaano hoostaga magaalada howlgallo lagu xaqiijinayo dhanka amniga kaasi oo markaa ka dhanaha kooxda al-shabaab howlgalka ayaa waxa hogaaminaya gudoomiye ku-xigeenka magaalada Marko ahna taliyaha nabad sugidda degmadaasi Maxamed Sheekh Xasan waxaana laga sameeyay deegaanada Gaarilow Farange Shufayri iyo duleedka magaalada Marka taliyaha nabad sugidda degmadaasi Maxamed Sheekh Xasan ayaa sheegay in ujeedka howlgalka uu ahaa sidii looga hortagi lahaa weerarada kooxda al-shabaab iyo dhibaatooyinka dadka ay ku hayaan walow uusan shaacin dad ay ku qabteen howlgalka sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ee magaalada Marka ay howlgalka sii wadi doonaan ilaa deegaanada hoostaga magaalada Marka laga saarayo kooxda al-shabaab oo uu sheegay inay markaa ka feejigan yihiin weerarada ay geystaan xilligan magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa mararka qaar asaligyada ciidamada dawladda weeraro ku soo qaada xubno ka tirsan kooxda al-shabaab oo ku sugan deegaanada xeebta ee magaalada Marko markana gobolka Jubbada Hoose haddii aan dib ugu soo noqono deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa la soo warinayaa in uu ka curtay roobka guga raaxo qodobkan hayno faahfaahiso ayadoo bilooyinkii u dambeeyay ay abaaro ku dhufteen inta badan gobolada dalka gaar ahaan deegaanada Jubbaland ayaa waxaa toddobaadyadii u dambeeyay qaybo ka mid ah gobolada Jubbooyinka ay ka curteen roobabka xilli dayraadka ah oo ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada gobolka Jubbada Hoose ayaa ka mid ah gobolada ay ka curteen roobabka waxaana ay muddooyinkii u dambeeyay roobabku ka da'ayeen deegaano dhowr ah oo hoostaga deegaanada Kismaayo halka oo ay ku nool yihiin dad xoololey ah deegaanada Beerxaani Janaac Cabdale iyo deegaano kale oo dhanka galbeedka kaga beegan Kismaayo iyo deegaanada uu maro webiga Jubba ee Gosha sida qaamqaam iyo Yontey iyo deegaano kale oo u dhow ayaa maalmihii u dambeeyay roobabka ka da'een qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanada ay roobabku u curteen oo la hadlay raadiyo Kismaayo ayaa alla ugu mahad celiyay roobabka ugu deeqay waxa ayna sheegeen in ay ku soo beegmeen xilli ay baahi weyn u qabeen isla markaana ay xoolaha u la'aayeen baad iyo biyo la'aan Xaliimo Cali oo ka mid ah haweenka xoololeyda ah ee gobolka Jubbada Hoose ayaa raadiyo Kismaayo uga warbixisay roobabka ka curtay deegaanadooda meel dhahan deganahay fiidaalkii oo dhan waa fadhinay roob ma sha Allah ilaahay mahadi sala qaban nimca loo go'aya aad iyo aad roobku loo helay aad iyo aad in badan roob badan baan helay xoolihii waxa la laayay xitaa xoolaha moorada looga sameyn lahaa la laayay abaayo
maya aridaydaan annaga aridaydaan ari baan haysanaa iyo roobki laga laayo xoolo markii hore way jilicsanaayeen oo xoolaha baahiday qabeen wixii gallaydaa la iska siisiinayay waxa gacantigow laguma dirgo ma ogtahay markaa gallaydi saasi iska cuncunayo jiidaarkii waa iska bidicdii hadday qabsatay xoolihii baahdeen habeen iyo maalin cirkii hayo wax la cunaa lahaa fiicannahay wallaahi intii bakbaktiday mooye intii kale soo kaya fiican baabuur nooma timaado kareetooyinkii nooma mar haddaan raxmad helnay alxamdulilah rabbilcaalamiin waa iska dhex fadhiyaynaa intuu jidku noo qalalayo dhinaca kale deegaanada dhanka galbeedka kaga beegan Kismaayo oo ay ka mid yihiin oo ay ku nool yihiin dad u badan xoolo dhaqato isla markaana deegaanada ay ka yimaadaan caanaha xoolaha ee loo isticmaalo magaalada Kismaayo ayay gaadiidleydu ka cabanayaan dhibaato dhanka isku socodka maadaama ay roobabka gooyeen wadooyinka soo aadi taasoo hakad gelisay caanihii xoolaha ee loo iibgeyn jiray magaalada Kismaayo. Maxamed Xuseen Cabdi waxa uu ka mid yahay darawallada keena caanaha xoolaha waxa uuna ka sheekeynayaa saameynta uu ku yeeshay roobabka dayrta. caanaha waxaan ka soo qaadnaa ilaa iyo meel la yiraahdo kaanjiroon agagaarkeeda magara roobkii shalay 8 saac nagu bilaabay 4 saac nagu bilaabay 8 saac buu naga fiiray oo kala wadan baan ku jiray xalay baan dhimid adeeg saddexaad baan leeyahay waxaan kala kulannay wallahi rafaad iyo waxaan kala kulannay dib intaad ka baxaysaa meel kalaad ku dhacaysaa ma ku noqon karnaba caanaha meesha ku go'ayaan wax lagu laaban karo ma caan laba habeen la soo wadiyay caday waa dadka xataa hooylaan ba qaarkood ku dhacdo guriyii waa ka dumay sidoo kale Deeqa Siciid Daahir oo ah haweenka ka ganacsada caanaha xoolaha ayaa sheegtay in kadib markii ay roobabku hakad geliyeen isku socodkii deegaanada miyiga iyo magaalada in ay yaraadaan caanihii loo iibkeeni jiray magaalada xilliga lagu jiro bisha Ramadaan oo ay dadku aad u isticmaalaan caanaha xoolaha waxaana hadaladeedii kamid ah waxaan ka ganacsadaa caanaha waxay iiga imaadaan caanaha roobka anaga caanaha ka ganacsanaa roobku wuxuu noo saameeyay si aan caadi ahayn baabuurta marna way naga xirmanayaan markay imaadaan magaalada caanaha ay imaadaan wax naga gadanayo malay magaalada lacag la'aan ay ku jirto 9 ciyaal ah haysta cid igu biisho iyo cid wax igu siisan ma jirto anaa wixiiga biisha anaa wixii ku shaqaystaa caanaha markay igu go'aan oo aan xareeyo gud naagii caanaha soo dhiibta lacagtooda anay iga rabaan ilaahayga iyo unta moobiyo wax kale caawis aan ka helana ma jirto alaba marka la gaaro xilli roobaad waxa uu hakad ku yimaadaa isku socodka gaadiidka magaalooyinka waaweyn ee dalalka taasoo ay sabab u tahay wadooyinka isku xiro qaybaha ka tirsan gobolada dalkeena oo aad u burbursan taasoo sababtay in marka ay roobabku curtaan in ay wadooyinka ay jarmaan daadadka ka dhasha roobabka halka doorkaasi kala socotaana waa idaacadda Kismaayo codka Jubbaland goor waxay noo soo socdo qodobada dibadda oo xiiso badan balse intaan u gudagalin waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha ee warka subax iyo Cabdirasaaq ay noo soo koobo aad baad u mahadsan tahay fantastic dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha warka aan ku bilaabay dhegeystayaal kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa 3 dhibcood ka heshay kooxda Aston Villa ay ku booqatay garoonka kadib markii ay kaga soo adkaatay 2-1 ciyaartan oo qayb ka ah horyaalka Premier League qaybtii hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-1 ay ku hogaaminayso kooxda kubadda cagta Manchester City daqiiqadii koowaad ayaa kooxda Aston Villa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana Ever 1 ka dhigay xidigooda John kadib markii uu caawin uu ka helay saaxiibkiisa daqiiqadii 22 markay dheesho maraysay ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City dhalisay goolkeedii barbara ah waxaana ciyaartu ay noqotay mid aad u xiiso badan daqiiqadii 40aad Manchester City ayaa hoggaanka ciyaarta u qabatay waxaana 2-1 ka dhigay xidiga qadka dhexe ugu ciyaaro qaybtii labaad ee dheesha markay dib isku soo laabtay ayaa labada dhinac waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u wanaagsan iyagoo sameeyay fursado badan oo gool loo filin karay ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 2-1 ee kaga adkaatay kooxda Manchester City kooxda Aston Villa ay ku booqatay garoonka kooxda ayaa haysata 77 dhibcood waxaana ay 11 dhibcood ay ka sareysaa Man United oo kaalinta labaad ku jirta xubinta ciyaaraha warka waanaga inta aan dib idinku celiyo qaybaha warka ka dhiman
cabdirasaaq aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo inoo soo koobayo xubinta ciyaaraha ee warka subax markana haddii aynu fiirino faahfaahinta qodobada dibadda ee warka subax saraakiisha waddanka hindiya ayaa waxa ay bilaabeen baaritaano ku aadan sababta keentay in kaydka oksijiinka isbitaalka manharastara ee magaalada nashig uu hawada markaasi ku qumo arrintaasi oo u muuqato inay horseedo dhimashada in ka badan 20 qof oo lagu dabiibayo fayraska koronaha video u muuqanayo inuu muujinayo barkadaasi oo qiiq cad oo markaa ka soo baxaya ayaa waxa uu markaa si usula wadaagayo warbaahinta saraakiisha dawladda ayaa sheegay in oksijiinkaasi ay gaari weysay bukaanada dadka aadka markaasi u xanuunsan oo ku jira cisbitaalka gaarka u ah dadka qaba cudurka COVID-19 laga yaabo inay sababtay dadka halkaasi ku dhintay ugu dambeyntiina gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo lala beegsaday hotelka kuwa raaxada uu ku yaala magaalada Kuwait ee dalka Pakistan ayaa waxa markaa ku dhintay 4 qof weerarkan ayaa sidoo kale waxa uu dhaawac ka soo gaaray ugu yaraan 11 qof sida ay warbaahinta u shaaciyeen saraakiisha waddankaasi safiirka Shiinaha u fadhiya dalka Pakistan ayaa la tuhunsan yahay in qaraxan lagula beegsaday meel gawaarida la dhigto oo ku taala hotelka sida ay wariyaashu soo sheegayaan safiirka ayaa waxa uu ku sugnaa magaalada Kuwait ee caasimada gobolka Balochistan ee ku taala xuduudda Afghanistan balse markii uu qarax u dhacay goobta kuma sugnayn Talibaaniyiinta dalka Pakistan ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka iyagoo aan wax faahfaahin ahna ka bixin bilooyinkii ugu dambeeyay kooxdan iyo kooxaha kale ee mintidiinta ahi ayaa waxa ay sare u qaadeen weerarada markaasi ka dhaca goobaha ay degan yihiin qabaa'ilada ee xuduudda Pakistan iyo Afghanistan guud ahaan warkii subax waad kala socoteen idaacadda Kismaayo codka Jubbaland subaxnimada waa nagay taatan iyo kulankayga dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo